madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay daafurka qorshaha isbeddelka qaran ee 2025 ilaa 2029 ayaa tilmaamay marxaladaha kala duwan ee uu dalkeena u soo maray inuu helo hannaan qaran oo sal adag leh caqabadaha ku godaaman iyo fursadaha aan haysano si aan uga mira dhaliyo aragtiyaha ummadda ku jiheeyo higsiga iyo himilooyinka fog. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka duuleyso xaqiijinta hadafyada horumarineed ee uu dalkeena u baahan yahay ayaa diiradda saartay saameynta qorshayaasha isbeddelka qaran oo ku qotamo la falgelidda xaaladaha taagan, soo saaridda kheyraadka dalkeena, ka faa'iidaysiga fursadaha iyo khibradaha aan u leenahay si aan ku saleyno baahiyaha dadkeena u qabaan hirgelinta ujeedooyinka waxtar leh ee guuleysto. Soomaaliyada cusub ee aan rabno 2060 waa ay ka duwan tahay tan maanta joogno. dhabaha iyo qorshaha aan dejinnay haddaan ka run sheegno waan xaqiijin karnaa aragtideena, waxaan samayn karnaa in aan qaadno tallaabooyinka waaweyn ee mucjisooyinka aan adduunyada horay uga dhicin haddaan iska kaashanno ka shaqaysiinta qorshayaasha isbeddelka qaran ee 2025 ilaa 2029. taas waxay abuuraysaa kalsoonida iyo maalgashiga waaweyn oo ay ku dhiiradaan ganacsatadeena iyo kuwa caalamka in ay mashaariicda ay ka hirgeliyaan dalka gudihiisa. waxaa bilaabatay hadda howshaasi, kuwa badanna inta uusan dhammaan sanadka ayaan dhagax dhigi doonaa. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay inay isbeddel dhab ah ku sameyso xoojinta amniga, siyaasadda horumarinta dhaqaalaha, tayeynta garsoorka iyo adeegyada bulshada oo ay ugu horeeyaan tacliinta, caafimaadka iyo shaqo abuurka dhalinyarada. isagoo uu tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in la kobciyo hay-adaha gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado hal abuurka iyo wax soo saarka dalka, iyada oo dowladdu ku hogaaminayso sameynta xeerarka, shuruucda iyo dhaqangelintooda, ilaalinta xasiloonida iyo daafurnaanta si loo helo deegaan nabdoon oo u sahlayo ganacsatada inay ku soo bandhigaan maalgashigooda. madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya halkii ay joogtay muddo dheer aysan marnaba suuragal ahayn in ay sii joogto, si cabsida looga gudbaana ay tahay in si daafuran loo wajaho caqabadaha waaweyn, laga dabaasho xaaladaha adag, iyadoo markasta xoogga la saarayo waddada guusha lana yareynayo guuldarrada si loo xaqiijiyo hadafyada fog ee ay dadka Soomaaliyeed filayaan loona gaaro horumar waaro. isagoo xusay in kala aragtiduunaanshaha dadkeena ay tahay mid muujinayso ilbaxnimo, biseel, qadarin iyo hirgelin ee mas'uuliyiinta dowladda ay helayaan si loo horumariyo dowladnimadeena iyo isbeddelka togan. waxa uuna dadka Soomaaliyeed ku adkeeyey in xukuumadda lagu garab siiyo meelmarinta qorshayaasha qaran ee ugu muhiimsan yihiin in shacabka codkooda ku soo doortaan hoggaanka dalka. transformationku markuu dhaco dib looma noqon karo. waa sababta National Transformation Plan loo soo alifay ee loo keenay oo aan ka soo manguursanay ummado badan oo ku dhaqmay, isku bedelay, horena u socday, oo fursadaha Soomaaliya ay haysataa aanan haysanin. fursadaha Soomaaliya ay haysataa ummado aan haysanin ayaa transformation planka inta qaatay ku soo meel maray oo meel aad iyo aad u sareysa yacni ku soo gaaray. waa sababtaan Soomaaliyana ay u dooratay in aanay dib wax walba u soo alifin wixii ummadaha qeyrkeen u shaqeeyay inaan qaadano annaga oo duruufteena gaarka ku sii dabaqayna waliba oo raacinayna. sidaas daraadeed barnaamijkan transformationka waa barnaamij aan rabno inaan kaga guurno meeshaan guurno. waa sababtaan u dejinay aragtida ama riyada ama visionka 2060 boqol sano ayaa ka soo wareegtay maalintii aan dawlad noqonin, xor noqonay. boqolkaas sano kadib Soomaaliya xaggee joogaysaa? waa daahsannahay, dib baan u dhacsannahay,
muddada kooban ee nooga dhiman ayaan rabnaa inaan aad iyo aad aan u orodno oo aan xawligeenna kordhino si aan waqtigii hore ee naga soo cunmay ee aan meesha sidii aan rabno noogu qabsoomin iyo waqtigii naga baaqday aan uga gudubno oo aan u gaarno 2060 Soomaaliyada cusub ee aan rabnaay aad iyo aad ayay uga duwan tahay midda maanta ah idadiiladeediina waa qabnaa waa aragnaa markaan dhaqaaqno oo aan isqaabayno annagu oo aan sida ay wax noqon karaan iyo sida aan isbeddelka degdega loo arki karo waa qabnaa haddii 20 sano horumarkeena dhinaca GDP-da hadda laga hadlaayay 2.7 uu joogay 2 sanana aan 4.7 aan ku gaarnay yacni weliba wax badan aan dhaliilayna inay naga gaabnaayeen oo sidii la rabay aanay noo ahayn markay wax badan isugu keentoosaan oo transformation plan-kan uu noo shaqeeyo waxaan u malaynayaa in tallaabooyin waaweyn iyo mucjizooyin waaweyn oo adduunyadu aanay soo arag shalay waxaan soo daahfuray maalan haddaan ka soo qaadno mashruuc $2 bilyan ay ku baxaysa markuu dhammaystirmo lacagtaasina ay tahay lacag Soomaaliyeed iyo lacag dibadda ka timiday oo dad aan Soomaali ahayn nimankan carbeed ee walaalaheen ah dowladda muxuu ahaay dalka Imaaraadka Carabta ka yimiday ay keeneen aqoon ay keeneen dhaqaalana waa keeneen kalsooni ay ku qaateen dalkan in lacagta intaas la ag la geli karo lacag u shaqaysanoo meel u tiilay ama account ugu jirtay ama kaar ay wax ku qaataan ay lahaayeen ay soo isticmaaleen waa keeneen engineering casri ah ayay keeneen magaalo dhan ayaa muxuu ahay ka dhismaysa meeshaan shalay soo dhul boor ah oo maxaan ku raadaya carakaawo ah waay magaalada dhinacan kale dhanaana iyo dhinacan haddii la aadayo jasiire iyo sidoo kale mashaariic waaweyn ayaan mar dhow ayadana ayaan ka meel dhigi doonaa haddii aan la yiraa oo deegaankaas muxuu ahay koonfur galbeed hoostaga ay heli doonaan sidoo kale Hirshabeelle ayadana sidoo kale mashaariic kale waaweyn oo tan hore u sheegnay mega projectskii maalmo dhaweed aan sheegnay way bilowdeen wayna socon doonaan sanadka inta aan u dhammaanin mashaariic waaweyn ayaa muxuu ahay dhagax dhigeeda Soomaaliya ka bilaabi doonaa intaasi waxaa sabab u ah kalsooni ay dowladda Soomaaliya iyo xukuumadda maanta jirtaahi ay keeneen in lagu kalsoonaado dalkan Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliyadii shalay inaanay ahayn Soomaaliyada maanta waaye waxa ay ka turjumayso ama macnaheedu saas ay leedahay waa run weliba isbeddelku waa dhib badan yahay waa xanuun badan yahay waa cabsi iyo walwal badan yahay qof walba meeluu bartay meesha uu bartay inuu iska joogo waa jecel yahay annaasu caduwu limaa jahala ayay dhahdaa muxuu ahaay carabtu dadku mar walba cadow ayay u yihiin waxa aanay garanayn muxuu ahaay tii ahayday shaydaanka aad taqaanaa wuxuu ka fiican yahay muxuu ahaay malaa'igta aadan aqoonintii la dhihi jiray oo ka dhinaca kalena waay laakiin sida haddaa tiraahdo wasaar annaga go'aanaan gaarnay 30 sano ama 20 sano ugu dambeeyay oo jamhuuriyadda saddexaad dalkan ay ka jirtay sidii aan wax u qaban jirnay si ka duwan inaan wax u qabanno markaan ka leexano wadadii hore